رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay safar ku tagaan magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khaatumo. Booqashadan oo la filayo inay dhacdo maalmaha soo socda ayaa ujeedadeedu tahay xoojinta xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka SSC Khaatumo. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa la kulmi doona madaxda maamulka SSC Khaatumo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intii uu socdo socdaalka waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha uu dhagax dhigo mashaariic horumarineed oo lagu taageerayo dib u dhiska iyo horumarka deegaanada SSC Khaatumo. Dad badan ayaa socdaalkan u arka mid sare u qaadaya maqaamka maamulka SSC Khaatumo oo weli dowladda federaalka Soomaaliya ay u aqoonsan tahay mid ku meel gaar ah. Magaalada Laascaanood ee ra'iisul wasaare Xamse tagayo ayaa waxaa ka dhacay dagaalo u dhaxeeyay maamulada Somaliland iyo SSC Khaatumo kuwaasi oo ay dad badan ku geeriyoodeen. Si kastaba ha ahaatee socdaalkan ayaa la filayaa inuu cadeeyo mowqifka dowladda ee ku aadan taageerada maamulkaasi iyo horumarinta gobolada SSC. Waa markii ugu horeysay taariikhda muddo 56 sano ah mas'uul xil sare ka haya dowladda Soomaaliya uu tago magaalada Laascaanood tan iyo sanadkii 1969 markaasi oo madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke isaga oo booqasho halkaasi ku jooga lagu dilay. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha.